Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Xanta Soomaalida. Marish Beauty channelkeeda iyada ayaa qarsatay. Lagamana jabsanin company-ga YouTube-ka channelkeeda hawadan ayagana meena ka saarin. Sababta ay u qarsatay channelkeeda aniga ku sheegay fadlan video dhameyso. Muuqaalka u dambeeyay ay soo gelinaysa oo raali gelinta ay ku raali gelinaysa qurux ku dhigli ayaa muuqaalkaas waxay dad badan ayaa dislike siiyeen. Intii meesha la siin lahaa like ya dislike. Yani like qofka ku siinaa waa qofka muuqaalkaada ka helay iyo qofka kugu xiran oo ma aragtay oo subscribe ku saare. Dadka waxa laga yaabaa like inay ku saaraan sababtoo ay kugu xiran yihiin. Qofka kalena waxa laga yaabaa inuu video ka helo like inuu ku saaro. Laakiin qofka ku saara dislike ta waa qofku nacab, waa qof ma aragtay ama muuqaalka soo dhigto muu ka heli. Marka dad badan ayaa muuqaalkii u dambeeyay raali gelinta dislike u saareen. Anaga dislike ma arkayno laakiin iyada private ahaan way arki. Tan labaad dad badan ayaa commentaal oo negative u soo qoreen, commentaal iyada argagax ku rideen. Tan saddexaad oo la dhihi karo oo sababta u qarisay channelka waxa weeye dad badan oo ku xirnaan ayaa subscribe ka cishteen. Marka iyada haraka way fikrad aqligeeda ayaa isticmaashay. Waxay isdhahaa dadkan subscribe ka cishanayaan maxaa sameyn kartaa sifa ma aragtay u istaajisay subscribe laga cishin lahaa. Marka Marish dislike tii oo ma aragtay dadka dislike siinayeen oo inta like la siinaa dislike u geliyeen iyo dadka ma aragtay commentation negative soo qoraan iyada waxa uma arkin. Laakiin markay aragtay dadka oo ma aragtay subscribe ka cishanayaan aqligeeda haraka ee quick thinking waxa la ee sameeyay isla markii channel waxa la jiray isla markii YouTube ay ku fikirtay inay ma aragtay ee qariso kadib markay saa u qarisay marka wana saad aqoonsi qurux ka dhiglo walaalo yaraan waa iska qosli kartaa qosl macaan la'aan iska qoslo marka wax weyn maaha YouTube oo waxa la jiray la qarsan karo oo private laga dhigi karo. Qofku markuu private ka dhigto dadka ku xirnaan hadii search garan ama dadka ay search garan YouTube lama arkayo hal muuqaal hata isaga u leeyahay lama arkayo. Marka waa wax YouTube ugu targashay. Marka SMS dadka subscribe kuma soo ceshan karaan, subscribe u istaagayaan. Marka waxa aqligeeda hadda ay isticmaalaysaa xilitation marka uu dago kadib helay soo ceshay channelka oo dadka ku soo celin bulshada. Marka xalay u dambeysay ay arkay loo isku keenay Adnan model isku keenay loo way heshiyeen. Hadda Marish Beauty walaalkeen qurux ku dhigli way raali gelisay way saafiyeen waxa isku ma qabaan. Marka insha Allah channelkeeda waxay soo ceshin doontaa markii ma aragtay tension hadda zaid waay tension hoos markuu soo dhaco dadka iska ilowaan marka gabadha caqdada loo qaadan insha Allah channelkeeda soo ceshto marka soo localkeeda. Mid kale qofka YouTube channelkiisa wuxuu ku hayn karaa marka la jabsado qofka jabsado wuxuu awood u leeyahay inuu magaca YouTube channelka uu ka bedelo inuu profile ka bedelo inuu ma aragtay muuqaal asaga uu soo geliyo. Marka channelka la jabsado dadka ku xirnaa marka ay search gareeyaan qofkii jabsaday haduu magaca ku bedelo magaca haduu ahaa Marish Beauty uma kale ka dhigo aan dhahno bal James dadkii YouTube-ka Marish ku xirnaa marka ay search gareeyaan James kaas u soo bixi. Laakiin muuqaalihii Marish ayaa u soo baxan thumbnailkiis Marish soo saarna arki muuqaalihii dhan oo Marish soo baxan. Laakiin magaca waa magac kale oo ku qoran James ama magacadi oo kii jabsado magacaas u sameeyay. Marka hadda Marish Beauty channelkeeda marka asaad gareys wax muuqaalaha ku soo bixi malaha wax magac kale oo ku soo bixi muuqaalaha wata malahan. Marka taas waxa cadeynta in YouTube-ka aan la garan hatta hadii la garan lahaa ida soo ceshin isla markan hawada ayuu ku soo laaban lahaa. Marka laba wada ayaa jirta tii hadda hore aan u soo sheegay in YouTube-keeda ay qarsatay sababta ay u qarsatayna aan u sheegay. Tan labaadna waxa weeye YouTube-ka in lagu sameeyo termination waxa weeye account-ka in la joojiyo. YouTube-ka company-ga ayaa laga yaabaa in ay joojiyeen. Marna YouTube hadii channel-kaada ay joojiyaan ama termination-ka ay kugu sameeyaan oo wada sax ah YouTube-ka ka kaca weligaan ma helis kuma soo naaso ina Gmail kala cusub afurta YouTube channel kala cusub afurta. Marka hadda ma dhihi karno Marish Beauty channelkeeda YouTube-ka ayaa hawada ku cunin ama termination ku sameeyeen. YouTube ciyaar ama been qofka channelkiisa termination kuma sameyn karaan. Waa iyada qofka inuu 3 strike u helo 3 strike waa iyada qofka 3 strike ku heli kara waa marka community guidelines u gafo ama qof u corporate ku sameeyo muuqaal aad soo gelisay. Labada shuruud ayaa ku heli kartaa strikes. qofka markuu 3 strike la siiyo u helo hawada ayaa lagu cunay channelkiisa. Marka hadda ma dhihi karno Marish YouTube channelkeeda hawada ayaa lagu cunay waa ognaa muuqaalo qurux badan ay soo gelisaa qof corporate ku sameyn kar malaha
muuqaaladeedana maxaa la jiray shuruudaha YouTube uma gafi karaan. Midda labaadna YouTube-keeda hack laguma sameyn. Marka way noo cadday Marish Beauty inay channel-keeda iyada ay qarsatay, sababta ay qarsatayna u sheegnay. Marka waa kolley markii tension hoos u imaado maaragtay tension hoos u soo dhaco dadka maxaa la jiray iska iloowaan markaas uma soo ceshan insha Allah markay soo laabatana sida marka hore maaragtay maxaa la jiray loo wada subscribe-ka lagu wada sida marka hore la soo badgana loo soo badgare. Marka video meesha ku eegay asxaabay anigana follow ha soo dhaw TikTok YouTube-kana ha liga looyin meesha link profile-kan soo saaray linka subscribe ha li saaro kun bis ay li gaarto asxaabay waan bari kun bis inaan gaaro YouTube subscribe-kaas. Marka insha Allah follow intaad igu qasaar leh TikTok waxa ay dhaanta adoo inta imaado YouTube-ka ay saarto subscribers follow hata igu khasaarin follow TikTok YouTube imaaw link meesha saaray meesha profile-ka subscribe bis isar waxaan kun inaan gaaro insha Allah channel-ka Xanta Soomaalida waxaan isoo gudbin doonaa waqti walba wararka ku saabsan dadka Soomaalida caanka ka ah social media iyo madadaalo kala duwan oo xiiso badan leh iyo maaragtay dadka wixii maaragtay oo beenta Soomaalida u sheegay inaan iga soo qabto inaan ka soo hadlo iyo apps-ki waxaan hadda la sheegaa Sweetcoin video ku xigo Sweetcoin Soomaali sweet and sweet ma Sweetcoin waa insha Allah inaan ka soo hadlo dadka maaragtay caanka oo dadka Soomaali caanka bas ka social media ayaa lacag ka sameyn karaan dadka kale oo iska caadi oo maaragtay caan ahaan lacag kama sameyn karaan. Marka dadka waqti ayaa loo dhameeyaa dad badan ayaa been loo sheegay marka video sax ah inaan ka soo hadlo videona way ku xigaa insha Allah the next day maalinta ku xigta ayaan soo gelin doonaa insha Allah inay la socotiin ayaan rabaa iyo wax walba maaragtay Soomaalida u keenaa insha Allah hadda ka bacdi anaa ka soo hadli iyo wixii maaragtay xaqiiqo iyo wixii run iyo wixii been anaa kala saar doona insha Allah. YouTube-ka maxaa la jiray halima subscribe ali saaro kun bis ay gaarso gambalkan hal furto insha Allah video ku xigo insha Allah wuxuu noqon doonaa Sweetcoin runta ayaan xaqiijin doonaa wuxuu uu yahay iyo wax kale dadka caanka bis ay lacag ka sameyn karaan oo iyagana muddo hata waqti dheer oo qaadanayaan. Mid kale ha iloowina videona ha li taabto adaska si dad badan u gaaro.